bartamihii bishii afraad ee sanadkan 2023 ayaa xafiiska xeralyaha guud ee qaranka iyo hay-adaha baarista dalka waxaa soo gaartay xog faldambiyeedyo si waafaqsan qodobka 18aad ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed. xogtaas oo la xiriirsan musuqmaasuq, been abuur dukumeenti dowladeed, lunsasho, leexsasho iyo xatooyo xoolo dadweyne, ka faa'iideysi xafiis dowladeed, dayacaad iyo gudasho la'aanta waajibaad sharci. xogtaas oo sheegaysa in faldambiyeedyadaasi ay ka jiraan xafiisyada dowladda ee kala ah: 1. xafiiska waaxda fiisa kordhinta ajaanibta ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. 2. xafiiska ruqsadaha shaqada ee shaqaalaha shisheeyaha ah ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. 3. xafiiska canshuuraha bariga ee wasaaradda maaliyadda xukuumadda Federaalka Soomaaliya, gaar ahaan xafiiska ka howlgala garoonka aadan Cabdulle Cismaan. Number 4. xafiiska qaybta dakhli xareynta ee laanta bangiga dhexe ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ay ku leedahay bangiga dhexe uu ku leeyahay garoonka aadan Cabdulle. xafiiska xisaabiyaha guud gaar ahaan qaybta ka howlgasha garoonka aadan Cabdulle. hay-adaha baarista oo gudanaya waajibaadkooda qaran ayaa bilaabay 19 bishii afraad 2023 baarista iyo fatashaada goobihii lagu tuhunsanaa inuu dambiga ka dhacay. waxaana baaris lagu sameeyay dad gaaraya 23 qof oo isugu jira dad ka shaqeeya xafiisyada dowladda iyo shakhsiyaad lagu tuhumay inay sababo kala duwan xiriir ula lahaayeen saraakiisha iyo eedeysanayaasha ka shaqeynaya xafiisyada dowladda. hay-adaha baaristu waxay sameeyeen wareysiyo, fatashaado dukumeentiyo, baarista agabyada dambiga lagu galay ee kala duwan sida kombiyuutarada, taleefano, sistemyada kala duwan ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha, maareynta maaliyadda ee wasaaraddu maaliyadda leedahay, sistemka ruqsadsiinta shaqaalaha ajaanibta ee shisheeye, iyo xisaabaad iyo akoono gaar loo leeyahay, buunooyinka lacagta lagu qabto iyo rasiidyada, iyo baarisna waxay ku sameeyay xafiisku shirkado ganacsi oo gaar loo leeyahay. baaris qoto dheer oo ay sameeyeen hay-adaha baarista iyo xafiiska xeralyaha guud ee qaranka kadib wuxuu xafiiska u gudbiyay maxkamadda gobolka Banaadir eedda 18 eedeysane oo loo haysto musuqmaasuq, been abuur dukumeenti, lunsasho, leexsasho iyo xatooyo xoolo dadweyne, ka faa'iideysi xafiis dowladeed, dayacaad iyo gudasho la'aanta waajibaadka sharci ee saarnaa. eedeysanayaasha la eedeeyay ayaa iskugu jira 9 eedeysane oo xiran iyo 9 eedeysane oo maqan ah, waxayna kala yihiin sida soo socota. eedeysanayaasha xiran: 1. eedeysanaha koowaad Cabdulaahi Maxamed Cali, agaasimihii guud ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda Federaalka Soomaaliya, xilka agaasimaha guudna loo magacaabay 6 August 2020. 2. eedeysanaha labaad Maxamed Cadde Mukhtaar Cabdiraxmaan, agaasimihii guud ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda Federaalka Soomaaliya, xilka agaasimaha guudna hayay intii u dhaxeysay 25 bishii 6aad 2015 iyo ilaa 9 bishii 7aad 2020. eedeysanaha saddexaad Cabdulaahi Maxamed Cusable, ahna agaasimaha waaxda ajaanibta ee hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. 4. eedeysanaha afraad Cumar Macalin Cali Cumar Katiin, agaasime ku-xigeenka waaxda ajaanibta ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. 5. eedeysanaha shanaad Saabir Xasan Cabdinuur, madaxa hubinta fiisa kordhinta ee waaxda ajaanibta hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. 6. aadan Maxamed Cabdi, ahna maamulaha qaadashada fiisada ee waaxda fiisa kordhinta ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha. 7. eedeysanaha toddobaad Abubakar Maxamed Cali, ahna maamulaha xafiiska canshuuraha bariga ee garoonka aadan Cadde ee wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda Federaalka Soomaaliya. 8. eedeysanaha sideedaad Cabdiqaadir Cabdi Socdaal Abtidoon, ahna khasnajiga qaybta dakhliga ajaanibta ee bangiga dhexe ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. 9. eedeysanaha sagaalaad Maxamed Aadan Cabdulaahi, ahna maamulaha bangiga ee laanta garoonka diyaaradaha ee aadan Cabdulle Cismaan. eedeysanayaasha maqanayaasha ah
كو عبد الرحمن عبد الكريم إبراهيم أهنا مدح قيبيتك رخصة سينتا أجانبتا واحدة شرعية iyo xiriirka shaqaalaha ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada kana howlgeli jiray garoonka diyaaradaha aadan cabdulle ee magaalada muqdisho maqane labo eedeysane cabdulaahi daahir weheliye ahna khasnajiga qaybta dakhliga ajaanibta laanta garoonka diyaaradaha aadan cabdulle ee bangiga dhexe ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maqane saddex cabdiwaaxid muxsin ibraahim ahna shaqaale ka tirsan qaybta ruqsadsiinta ajaanibta ee waaxda sharciga iyo xiriirka shaqaalaha ee wasaaradda shaqada ee arrimaha bulshada kana howlgeli jiray garoonka diyaaradaha aadan cabdulle ee magaalada muqdisho maqane eedeysane muxuudiin xasan jurus saabey agaasimihii waaxda canshuuraha beriga ee wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalka soomaaliya oo ah maqane baxsad ah eedeysane maxamed idriis axmed ahna madaxa qaybta canshuuraha dadban ee wasaaradda maaliyadda ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maqane eedeysane maxamed aadan jimcaale koofi ahna agaasimihii hore ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maqane eedeysane cabdiqaadir cilmi cali ahna agaasimaha guud ee agaasimaha guud ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maqane eedeysane cabdiraxmaan maxamed cali caadle ahna agaasimihii hore ee waaxda ajaanibta hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ahne maqane eedeysane abubakar xasan aadan madaxii hore ee xaqiijinta dukumentiyada codsiga fiisa kordhinta ee waaxda ajaanibta hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha maqane xafiisku wuxuu maxkamadda ka codsaday inay soo mudeyso maxkamadeynta iyo dhegeysiga dacwadda loo haysto eedeysanayaasha dhammaantood isla markaana wuxuu sidoo kale maxkamadda ka codsaday inay gaarsiiso dhammaan eedeysanayaasha eedda loo haysto xafiisku wuxuu sidoo kaleeto gacanta ku hayaa baarista galal kale oo la xiriirsan musuq maasuq iyo xatooyo xoolo dadweyne marka ay baaristooda dhammaatana wuxuu la wadaagi doonaa ummadda soomaaliyeed waxaana u gudbin doonaa eedooda maxkamadda awoodda u leh hadduu ilaah yiraahdo